الله ونحرسته وزير دولي وزارة أوقافك iyo arrimaha diinta Hirshabelle xildhibaan Nuur Xaashi Warsame ayaa waxa ka soo qayb galay aaskiisa xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabelle maamulka gobolka kan degmada iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada iyaduna marxuumka lagu aasay qabuuro ku yaala tuulada Koonka oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle مسؤولينتي كسو قيبغشي aaska ayaa ka sheekay sifooyinka uu lahaa xildhibaan Nuur Xaashi oo habeennimadii xalay kooxuhu weysan ku dileen afafka hore ee gurigiisa xilligu ka soo baxay salaada cisho masjid ku yaala xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi ha u naxariisto marxuum xildhibaan wasiir Nuur Xaashi Allah u naxariisto wuxuu ahaa inta aan ka ogaa nin cibaado badan nin wuxuu ahaa dulqaad badan wuxuu ahaa nin wardi badan wuxuu ahaa nin mar walba jecel inuu weesadiisa qabo wuxuu ahaa nin yaani masaajidka ilaahay ku dukada mar walba ayuu ahaa oo ilaahay aaminsan qadarkiisa aaminsan ayuu ahaa Allah u naxariisto ilaahay ha siiyo qabrigiisa Allah u waasiciyo inna lillahi wa ilayhi raaji'uun walaalkayna Nuur Xaashi xildhibaan wasiir sabri imaan Allah naga siiyo waxa dishay gacan ka xaq daran day kuma haysan wax kala kama qaban ilaahay sababta askala qof walbana markii dhimanaysa waxay ku dhimanaysaa sababteeda alxamdulillah waa qoranta ciidii karta male waxaan rabaa inaan tacsiyo u diro ahaladii caruurtii xaaskii oo ka geeriyooday in ilaahay sabri imaan ka siiyo waxaan kaloo rabaa inaan tacsiyo u diro xildhibaanada Hirshabelle dhammaantood waxa kale oo rabaa in tacsiyo u diro xukuumadda ka tirsanaayo oo wasiirku xigeenka garsoorka cadaaladda awqaaftii arrimaha diinta ka ah intaas waan rabaa in tacsiyo u diro iyo ummadda Soomaaliyeed oo taqaan guddoonka xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka Hirshabelle ana qosima madaxweynaha Hirshabelle Marwo Canab Axmed Ciise ayaa dhankeeda tacsiyo u dirtay eheladii qaraabadii iyo asxaabtu ka tagay xildhibaanku dhanka kalena baaqay u dirtay ciidamada qaybooda kala duwan inay ka hortagaan falalka amni daro inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto xildhibaan Nuur Xaashi Warsame aha wasiir dawlihi wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda waxaan leenahay diinta iyo awqaafta waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto marti la jecel yahayna Allah ka dhigo sakaraadka waa dhaafay Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu su'aasha u dhab yareeyo arabayna halkan tacsiyo uga diro ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Hirshabelle gaar ahaan ciidamada xildhibaanadii Hirshabelle iyo xukuumadii qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii xaaskii iyo caruurtiisa iyo walaalihiis waxaan leeyahay dhammaantood samariya iimaan Allah naga siiyo waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliska Hirshabelle hay'adda nabad sugidda ciidamada qalabka sida waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro walaalayaal waxa la yiri nin lagu seexdo ha seexan nin lagu seexdo ha seexan awal waxay joogtay wadadii awal waxay joogtay dariiqii awal waxay joogtay jidgooyo laakiin hadda waxay timid xaafadihii baash waa nin ku eg oo kugu jira waa nin ku eg oo kugu afa waa nin ku eg oo kugu sanad ku ogeyn kugu diina waa nin ku hadal ah oo kugu luuqad ah waa nin aan waxba ka duwanayn ninka ku nadilaaya waxaan codsanayaa ciidamada qalabka sida arintaas inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan waxaan maraynaa laba xildhibaan 17 bishii hore iyo 17 bishan inta u dhaxaysa waan qiyaasi karnaa sidan oo kale ayay ahayd dilkii wasiirkii wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle xildhibaan Cabduqaadir Karaani waa xildhibaankii labaad muddo 30 cisho gudeed lagu dilo magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle iyaguna ka soo baxaya salaada cisho Yusni Maxamed Axmed Bulsho TV magaalada Jowhar shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay eheladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab